وعنا ونكسن داوديل كنا سو دوادا بيجكا يوتيوبكا ee kalkaal media oo warar iyo warbixino kala duwan aad ka daawataan warkan idinayna waxa ku saabsan yahay dalka koonfurta Afrika ku yaala oo heegan ku jira iyadoo oo la sugayo al-shabaab waxa wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika ee Mozambique ugu horeeyo ciidankooda ammaanka ay galeen heegan buuxa kadib markii la sheegay in al-shabaab halkaasi ay markaasi ku sii fidayaan hay'adda International Crisis Group ICG ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee wadamada Kenya iyo Uganda warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay ku soo aaday 5 sano kadib markii uu dhacay weerarkii khasaaraha badan geystay ee Westgate ee magaalada Nairobi weerarkaasi ayaa lagu dilay 67 qof iyadoona al-shabaab ay haysteen xarunta 4 maalmood weerarkaasi ayaa muujinayay awoodda kooxda al-shabaab ay leedahay inay weerar ka geysan karto meelo ka baxsan Soomaaliya isla markaasina ay la wareegto xarumo waaweyn oo ganacsi ICG ayaa warbixinteeda xoog ku saartay sida ay tahay khatarta al-shabaab ee gobolka Afrika bari iyo waxyaabaha iska bedelay dhinaca amniga hay'adda ayaa xustay in al-shabaab ay u wareegsadeen wadamada Tanzania halkaasi oo ay ku sugan tahay koox kale oo argixisa kadib qorshahan cusub oo ka hirgalay wadamada Kenya iyo Uganda Tanzania ayaa waxa ka jirta koox argixisa oo al-shabaab loogu yaro lana sheegay inay xiriir la leeyihiin al-shabaabka Soomaaliya ka dagaalama ciidamada wadanka Mozambique kuwada xuduuda ayaa lagu sameeyay isbedel sida laga soo xigtay sargaal ka tirsan militariga dalkaasi waan bedelnay habkii sugitaanka ammaanka xuduudaha dalkeena gaar ahaan midda Tanzania in la wadaagno ayuu sargaalkaasi sare ka tirsan militariga Mozambique wadanka Mali ayaa sidoo kale lagu soo waramaya inay sameysteen isbedel dhinaca amniga ee ciidamada xuduudda waxaana dhammaan tani ay la xiriirtaa khatarta al-shabaab ee laga cabsi qabo inay sii kordho madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalalka Afrika laga garabsiiyo ciribtirka argixisada oo uu sheegay inay saameyn ku yeelan karto nolosha bulshada Afrikaanka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii ku saabsanaa dalka koonfurta Afrika ku yaala oo heegan ku jira iyadoo oo la sugayo al-shabaab isla markaasina xuduudaha qaarkood la xiray haddii aad ku cusub tahay page-ka kalkaal media fadlan ha hilmaamin subscribe-ka si aad ula socotid wararkeena iyo warbixinadeena dambe insha Allah